quraanku markaa nabi Muhammad ku soo degay salawaatullaahi wa salaamu alayhi 14 qarni ka hor ayaa waxa uu qorayaa masaa'il basharku dhawaan uu ogaaday kadib laabkan iyo mijharkan ama microscope-da tan iyo qalabkan wax lagu baadho scientifically markay koreen wax hadda la gartay ayuu quraanku wuxuu ka warramayaa 14 qarni ka hor taasi bay culimadu leeyihiin waxay daliil cad u tahay inuu waxa kan yahay waxyi ku soo degay nabi Muhammad ee aanu ahayn nabi Muhammad iyo casrigiisii wax la ogaan karayayba idan waa nooc ka mid ah mucjisaadka quraanka sida ogeed ayaa مثلا رابط العالم الإسلامي هيئة بيلاده لا يراده هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة إعجاز كعلمي يا قرآنك هي السنة كصابسا ساينتيفيكا مثلا شيخ زنداني مركو مدحده كان هنجري هيئة داسي وحيسمى بحوث دكتور بدن له waxaa jirta 14 nin oo khubarada dunida yalla tilmaama ah oo cid waliba fanni gaar ah khabiir ku tahay ayay dooda la galeen 14 kan nin doodahay la galeen waxay u samaysanayd su'aalo la weydiinayo مثلا todobada nin ee cilmi lajinna dunida ugu khubaraysan looga dambeeyo todoba nin bay jiray oo ay markaa ku tilmaamayeen inay yihiin science embryology iyo waxa si ku saabsiisan cid looga dambeeyo dunida waxa kamid aha ururka science ka qaybtaasi ee North America oo dhan ninka haysta Canadian Keith Moore la yiraahdo Keith Moore wuxuu leeyahay book human development ama human embryology ka buugiisan la yiraahdo sideed luqad ku qorayay mostly jaamacaadka dunida waa buuga oo ah reference buuga qaybtaasi ah ee loo isticmaalaba وأنك كنت المامان أبو علم الجنة في كندا أبها علم جنينك قضية تنمركن بلابي يبو زنداني لي هي وحن أركيبو يري أنا جو مسألة بحثنا أيان أفر يطبن فيلم أو قصة سيسن المها أورك سدو أكره وأفر يطبن كبل لي واحد تحقيقي إن كان بانركي دبتنا نين عالم وفني كان أنا ويما وحن كوري بودي ورني كيث مور كان يمحوي هاي مال والبون كو قران كيث مور ويقولوا إنك ما يدقونين إنك نوا أبو علم الجنة علمك كنوع كنا وأنك كأب دوني قدام بيسو حقو شو قابان كوري بودي حلا يقولوا بودي جامعة تورونتو كتالله هيو شوغا ما لا حديد كريه هاي إنك ما حديد لا سميني بودي أنا حديد كلا سميني وحنا بودي وحنا ربعنا سؤال كوي دينه ويلكم بودي كالا يا سيدات سؤالات بيويدي أنا يساقرتين سيدتن كي markuu uga jawaabay ay dhaadeen sideetanka jawaabood quraanka iyo xadiiskan ku haysanay waxaan macquul ma ku hadlaysaa waxay dhaadeen sideetanka mas'alo adigu aad leedahay dhawaan baa la wada ogaaday ama goortan baa la xaqiijiyay ama caynkan baa la xaqiijiyay intaba waxay ku qoran tahay nusuus iska caadi iyo xadiiskii nabiga iyo aayaadka quraaniga bay ku taala masaladii markii loo sharxay ee uu arkay nusuusta balyiri tusay nusuustii arkay ayuu wuxuu jeediyay saddex muxaadaro ku saabsan human embryology iyo quraanka isaga jeedinaya markaas aan zandani waxaan ku yiri maadaama buugaagu yahay reference buugii dunida ay waxa kan u isticmaalaysay markaad qaybta taariikhda ka waramayso ee muqaddamada buugaaga waxaad qortay علم الأجنة وقت جاهرينا وحباب بدن لقى جرانين إلا أيام مركي اللي هلاي مويانه إلكترونيك ميكروسكوب كان إلكترونيك جاي وين مركي اللي هلاي مويانه مركي هرينا وحباب لقوا جاين بعض قرطي أو ميديفيال بيريد كي عهدية دي مدوبين يتاي ده تاريخ ده سنة صح ما هو أنا كم خوش جنيه وحلقوا جاي مدو حكي بدشت ساقر بيد أنا كقرية وان soo siyaaqay buu yiri taariikhda hore in wax laga ogaayo sida wax loo sheegay inaanay hayna wax badan in laga ogaa intii baan soo qoray waan u keenay buu yiri dabeetana page buu ku daray buu yiri kitaabkiisa uu kaga warramayo taariikhda caynkan markii dabaan waxaan ku yiri buu yiri ma suurtagal tahay in tabacaadka dambe buugaaga kan
chapter kastoo aad ka hadashay quraan iyo xadiisku wixii ay ka sheegeenna inaad ku darto soo qora buu yidhi Zandani baa wuxuu leeyahay aniga iyo Sheekh Ibn Baz iyo qoladaas ay isugu tagay waa qoray dabeetana waa la soo qaaday wuxuu ku daabacay kitaabkiisii Soomaaliya markii 88kii la qaxayay buu iga lumay buuggaas oo tabacadii oo ku taalo nusuus walba oo chapter kasta oo kamida buugu marka uu qoran yahay ayaa hoostiisa waxa ku qoran aayaadkii iyo axaadiistii ku soo aroray iyo sida loo define garanayo ama sida loo sharxayo 14 nin oo culimada waaweyn oo kala takhasusaad ay la kulmeen Keith Moore kaasi uu kamid yahay Kroner meel la oran jiray odaygii geologiga jarmalka ahaa uu kamid yahay kii cilmi al-bahaarka Mareykanka ahaa niman kala gadisan wuxuu ka duubay markii dambe musalsal TV oo la yiraahdo innahu al-haq baad heli kartaan isagoo kitaabana waxa soo saartay hay'a al-i'jaz al-ilmi في القرآن والسنة رابط العالم الإسلامي سجال بوك بيلين سجال بوك وكور رمية مسائل كاسي الإعجاز العلمي في القرآن وبوك استاي واحد جارك كور رمية يعني قضايات كان مركي أفريقيا طبعا كان مركو ضد الله صمين يا شيخ الزنداني يا علماء الله صعوته قاروا يا شهاتين مارشال جونسون اللي يرادون مريكاني waxaan markaan u yeedhnay ayaan su'aalo weydiinay buu markuu ka jawaabay ayaan nidhi waxaan quraanka ka warramay intuu istaagay buu yiri nonsense isagoo la istaagay buu yiri markaasaan nidhi buu fariiso waa buu fariisan waayay buu carad cadooday haddaan naga istaagayna baan ku nidhi buu yiri waan isla taagnay anana taagnidan kuugu akhriyayna waxaan nonsense ka leedahay baan ku nidhi buu yiri dabeetana waan u sharaxnaa akhrinay buu yiri markaas oo aamusa Marshall Johnson kan intaan la hadlin buu yiri Keith Moore baan waxaan ku nidhi buu yiri mas'aladan isay kula tahay wuxuu waxay ila tahay culimada sayniska buu yiri qaarna waa ahraar oo fikradooda hadlaan qaarna wax kale ka baqaan iyo wax kale xeerinayaan dadka ahraarta ah oo dhammaan waa aqbali doonaa buu nagu yiri mas'aladiina tan markaasaan ku nidhi buu yiri iyada ahraarta oo maraynaysa mas'alada tan aqbaan muu sharxi karnaa oo taga buu yiri Marshall Johnson waa Johnson kan ka cayaale nonsense Johnson كما كان وشرحنا يقول لك ورنا قضية الثانية القرآن في حديث السدو التلمامي أيوه يقول مركي دنبه أرنتنا شيء جيسان هاي كلها طيبان كنولو وصدح مدون بول هي صدح دمتكو حاجاتكو هايسا وحيقول محمدين مجهر هايستي وحن وحلقوا ميكروسكوب إنه أكتي سيالي waxaan ku nidhi xadaaradu waa wada socota waqtigaasi carabtu waxay ahayd dad aan waxba haysanin quraankan laftiisa markay qorayeen wax kale ay ku qoraan way waayeen lafa iyo caleemo iyo harag dushii baa lagu qortay buu yiri ninka quraankiisii ugu sareeyay waa haystay ba harag dushii ku qortay miyaa microscope haystay baan ku nidhi buu yiri ilaanu maadadii dhameeyay la ilaalinayay ba wixii adawaadkii lagu ilaaliyo lagu qoray waxay noqotay baan nidhi